runtii waxay ahayd 5 maalmood oo khibrad wanaagsan iyo waayaragnimo shakhsi aan kororsaday waxaan wadaagnay xirfado iyo tabo ka caawinaya in caqabadaha maamuli karaan sida barnaamij loo dhisi karo sida arrin ijmaaciya oo bulsheed oo taagan loogu maare heli karo team dhisi karaan oo wada shaqeyn xirfado wada shaqeyn iyo team ay ku wada shaqeyn karaan ay heli karaan awood hogaamineed ay yeelan karaan ay waxyaabaha shakhsiyan iyo si guud labadaba saameyn ugu leh noloshooda shakhsiga iyo nolosha bulshada ay isku danaha yihiin ka taageeri kara dhammaantood waxay ahaayeen dad successful ah oo noloshooda shakhsiga caqabado aad u laxaadle ka soo gudbay hadda ahaan la nool waxyaabahay ku riyoonayeen waxyaabo ka mid ah welina dadaalaya oo runtii ay ka go'an tahay inay gaaraan meesha ugu sarreysay ay gaari karaan iyagoo dareensan in caqabadaha nolosha ka haleeli karaa aanay qeexayn qofka ay noqonayaan laakiin iyagu ay qeexayaan qofka ay yihiin natiijooyinka ay nolosha ka helayaanna kuwa wanaagsan inay noqdaan ku dadaalaya tababarro intaa ku aadan bay ahaayeen aniga laftigayga wax weyn bartay waxaan ku kalsoonahay in isbedel alxaadle ay samayn doonaan nololahooda shakhsiga iyo nolosha ijmaacigaaba ay wax weyn ku soo dari karaan awoodda iyo niyadda san iyo hiraalka fog iyo hanka weyn ee ku jiray dadkan aan la shaqaynayay aniga ay inspire garaysay aniga ay dhiirigelisay aniga wax badan bartay aniga inta aan la wadaagay in ka badan ka bartay waxay ahayd khibrad iyo waayaragnimo aad u qurux badan in aan la shaqeeyo dadkan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد مقعيق ومحمد عبد الوبح وحانا هينين أرقى نافكا لكن أنا سوهيسن إنو نافية هيو عندها كمقن عنده واللبو وعندها قلبك عندها وجهك أما مدح indhahan wajiga ku yaala waxa lagaga bayraa qodaxda iyo dhagaxa iyo laakiin indhaha qalbiga way indhaha wax qabta indhaha qalbiga way indhaha kalsoonida iyo wax qabashada iyo qofka maxaa ku raadayay noloshiisa intaba saameyn ku leh magacaygu waa Istaal Ismaaciil Cali lugayaan naafaka ahay ma sha Allah alxamdulillah wax inaan u qabo iskuma haysto waxaan ka shaqeeyaa 2 meelood meel waa ururkahan oo xubinka ahay oo ka shaqeeyo meelna waxa weeyaan hay'adda la yiraahdo Hello Trust oo qayb madax ka ahayba ma sha Allah nolosha qoyskayga iyo taydiba waan dabaray kale waxaan u haystaa inaanay naafanimadu ahayn jirka oo yahay qalbiga maadaama qofku uu naafay yahay xubin naafa ka yahay ma hadda inuu istiraahdo maxay ahayd naafa tahay wax ma qabsan karaysid ma dhaqdhaqaaqi karaysid waayo naafanimadu waa xaween qalbiga haddaad qalbiga naafo ka noqoto waxba ma qaban karaysid magacaygu waa Khadra Maxamuud Ibraahim waxaan ka socdaa ururkahan marka anigu horta naafanimadu waxay tahay horta ma aaminsaniba naafanimo inay jirto tu jirahaaneed ma aaminsani tu qalbi amba maskaxeed oo kale oo dadka fikradda qaldan aaminsan oo kale qofka aan garanaynin qofkan xuquuqdiisa oo kale kaasaan u arkaa anigu naafo marka anigu horta 7 ciyaalan leeyahay 7 ciyaale iyo reerkayga baan ugu baaw shaqeeya waxaan sameeyaa waxaan koofeerado kale waan ka shaqeeyaa wax qurxinta dumarka ayaan ka shaqeystaa tababar aad iyo aad wallahi ii bedelay wax badan oo aan fahansanayn baan ka fahmay oo wax badan oo iga daboolnaa oo aan fahansanayn ayuu iga bedelay ما شاء الله waxaan bartay hogaamintii oo kale oo 2 qaybooda team sidii loo abuuri lahaayee loo shaqeysan la isugu xiri lahaa ayaan bartay alxamdulillah rabbil caalamiin magacaygu waa Liibaan Xasan Aadan tababarkan aan qaadanay 5 cisho runaantii wax badan buu iga bedelay wax badan markii hore aan dareensanaana way jireen oo markii hore waan runtii shaqeyn jiray waxyaabaha ka shaqeyn jiray waxa kamid ah daqaadka ayaan horta anigu ka shaqeeyay markii hore oo qaadlaanahay runaantii magaalada Hargeysa meelo badan baan ayaan ku qaybiyay anigu aan dhigaan aniga galbeed buqaadku iga imaada
midna meelo badan Hargeysa ka mid ah waan dhigdhigaa habeenkiina meel baan lagu keeno lacagaha oo ku xisaabtamo dhan taksiilan ka hayo magaalada Hargeysa oo dad badan way arkeen oo waan ka shaqeeyaa tababarkan Maxamed Cumar runtii uu noo dhigay marka shanta cishana wax badan buu ii sii kordhiyay oo marka horeba aan ku jiraan dal wuxuu siiyay kalsooni badan buu ii siiyay marka aad baan ugu faraxsanahay waan ka sii horumarin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo qisooyinka dadkan aan la shaqeeyay ay shakhsiyan la noolaayeen waxay ahaayeen qisooyin awood badan runtii qisooyinkay wadaagayeen intii tababarka aan wadnay runtii waxay ahaayeen kuwo la yaab leh oo aanad marnaba filanayn suurtagal ahaanshooga laakiin waxa xaqiiqooyin ay la noolaayeen iyo isbedelo ay iyagu gadwadeen ka ahaayeen fursad si qof kasta oo naafa oo la yaabi doonta natiijooyinka uu nolosha ka gaadho korcod biyay ka hawarisay konton isku dhaan ayaaray umada lagu dhiibay dhabar xumaan ayaana qalkaaga laga roorin maalin roob ayaan reerkii ku dhalay kaaga tagin dab xumaan